saakay abaarihii sagaalkii subaxnimo kooxaha argagixisada ayaa waxay isku dayeen gaari baraada ah oo madow in ay soo dhaafsiistaan waddo u xirneed ciidamada ammaanka oo xaafad ku tiilay isbitaalka Suudaaneeska dhinaceeda runtii waddadaas way xirneed si qarjajeex ay rabeen inay ku soo dhaafaan ciidamada ammaanka ayaa ka war helay waxaana amaantaasi mudan shacabka magaalada Muqdisho iyagu si dhow ula shaqeeya laamaha kala gedisan ee ammaanka isla markaana ku wargeliyay in gaari baraada madow noocaasi ah uu doonayo inuu isku maro waddadaasi oo xirneed isla markaana ciidamada ammaanka ee goobtaasi soo gaareen gaarigaasna isku dayeen inay istaajiyaan rasaasna ay markaasi dhaxmartay kadibna ay ciidamada ammaanka ku guuleysteen iyagoo shacabkii badbaadinaya inay goobtaasi ay ka nadiifiyaan shacabkii inta ay ku mashquulsanaayeen gaarigii oo halkaasi ku qarxay halkaasi waxaa ku dhaawacmay ilaa 4 askari oo iyagu ka hortagay inay badbaadiyaan shacabka magaalada Muqdisho ku dhaqan isla markaasina kooxahaas argagixisada la dagaalamay ee fashiliyay dhibaatadii ay la damacsanaayeen shacabka sidoo kale abaarihii 11kii ayaa kooxaha argagixisada iyagoo iska soo dhigay ciidan waxay damceen inay soo dhaafaan jagboontigan Saybiano iyagoo isku ekaysiinaya ciidamada militariga tuutihii militarigana watay ciidamada booliska ee jagboontiga joogay ayaa iyaguna ka hortagay oo la dagaalamay halkaasna waxay ku dileen kooxihii nabaddiidka ah ay hadda u jeedeen inay halkaan meedkooda yaalaan hubkii ay wateen ay kaga qabteen sidoo kale waxaa halkaan ku dhaawacmay ciidan kale iyo shacab waxaa sidoo kale dhibaato ka soo gaartay shacab oo ku dhintay waxaana kaga dhintay ciidamada booliska hal qofood tirada marka ciidamada dhaawacantay labada dhacdo ee maanta dhacday waa ilaa iyo 6 ciidan hal askarina waa uu kaga geeriyooday Allah u naxariisto waxaan mar kale u mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed sida dhow ay ula shaqeeyaan laamaha ammaanka qaybahooda kala gidisan waxaanu mar walba shacabku u sheegaynaa in wixii dhibaato ay arkaan ay la soo xiriiri karaan nambarka 991 iyagoo ku soo wargelinaya qaybaha kala gidisan ee laamaha ammaanka isla markaana ciidamaday u diyaar u yihiin in ay ku howlgalaan warbixinta iyo xogta ay ka helaan shacabka inta dhaawacantay halkan ku dhaawacantay waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay caafimaad siiyo inta ku geeriyootayna naxariistii janna ayaan eebba ugu rajaynaynaa kooxaha nabaddiidkana waxaan u sheegaynaa in laamaha ammaanka ay u diyaarsan yihiin sidii ay ugu hortagi lahaayeen una badbaadin lahaayeen shacabka